Asalaamu calaykum. Filimkan wuxuu ka bilaabanayaa cunug lagu magacaabo George, midkaas oo aad u faraxsan asigoo soo ordaya oo u imaanaya hooyadiisa aabiis wuxuuna u sheegay maalinkaas inuu faraxsan yahay uuna doonaya inay u wadaan iskuulka. Intaas kadib cunugani George waa la soo wadaya waxaana la keenayaa iskuulka. Laakiin maalinkaas hooyadiisa aabiis waxa ay leeyihiin qorshe. Midkaas oo ah in cunugooda George ay u keenaan walaal waxaana maalinkaasi aadayaan meesha lagu xanaaneeyo carruurta agoonka ah si ay cunugooda ugu soo dooraan wehel cusub ama walaal. Intaas kadib meesha ayay imaanayaan waxayna meeshaas ku arkayaan carruur aad u fara badan waxaana markiiba ayagoo sidaas u taagan maqlaya cod dhahayo waxaan kala aqaanaa carruurta meeshaan joogo midka wanaagsan iyo midka fiican. Markii sidaas u fiiriyaanna waxay arkayaan dooli hadlaya. Dooligan wuxuu u sheegaya in carruurta meeshaan joogta uu kala yaqaano midka xun iyo midka wanaagsan iyo weliba midka qalafsan. Laakiin qoyskani waxayba ka helayaan dooligani waxayna go'aansanayaan cunugooda in ay walaal ugu dhigaan dooligani Start lagu magacaabo. Intaas kadib waxay go'aansanayaan inay tagaan meesha xafiiska ayna dooqdaan oo ay dhahaan aniga waxaan doonaynaa inaan dooligani wadano oo aan geysano gurigeena. Waa loo ogolaanayaa. Intaas kadib waxay soo aadayaan gurigooda waxaana dooligani u sheegayaan inuu kusoo dhawaado qoyskani oo gurigani gurigiisa uu yahay hadda laga bilaabo inuu ka tirsan yahay qoyskani. Intaas kadib waxay barayaan qoyska haluu ka kooban yahay laakiin markiiba waxaa soo wararaya mukulaal gurigaasi joogo waxayna u sheegayaan in mukulaalkani uusan u dhawaanin dooligani hadda laga bilaabo maadaama uu qoyska ka mid yahay haddii kale guriga laga burin doono bisadaani. Markiiba waxaa imaanaya George asigoo aad u faraxsan oo doonaya inuu arko walaalkiisa laakiin markuu arko inuu yahay walaalkiisa dooli aad ayuu u xumaanaya arrinkaasi oo wuxuu u sheegay inuusan doonayn. Markiiba qolkiisa isku galaya. Haddaba hooyadani abbaan waxay isku dayayaan inay George Start isbaraan laakiin George waa mid ka dhaga adeegaya arrinkaasi. Intaasi kadib cashada ayaa la dhameeyay Startina sariirkaas ayaa loo yeelay oo waa la sixiyay. Start asigoo sii gamaayo hurdada sii gasha raba ayaa markiiba waxa uu imaanaya bisada Nobel. Bisadani ayaa waxay u sheegaysaa inuu is ilaaliyo maadaama asiga hadduu dhaafay bisadaha kale ee meelahan ku sugan aysan dhaafaynin oo ay cunayaan. Laakiin Start wuxuu u arkaaba kaftan. Haddana waxaa la gaaray subaxdii. Start George waa soo wada kacayaan si wada jir ay meeshaas ugu cadeysanayaan. Intaas kadib George hooyadiis waxay u sheegaysaa inuu dharka iska soo siiyo maadaama ay wasakh yihiin laakiin markiiba asigoo iska siibay dharka dhulka ayay ku dhacayaan waxaana meeshaas ku jiro dooli laakiin markiiba qasaalada ayaa lagu ridayaa Start dharkiba sidaas ayaa lagu furayaa biyaha oomada laakiin qof asigoo uguma jirto waa mid iska qeylinayo. Hooyadu waxay u malaysaa in albaabka la garaacayo qeyladan ay maqlaysaa markiiba waxay fiirinaysaa albaabka ayay tagaysaa laakiin qof jooga ma lahan. Qeyladan waa qeyladii Start. Nobel ayaa markiiba arkay Start inuu yahay mid aad u rafaadsan laakiin waa uu diidaya inuu badbaadiyo waa uu ka dhaqaaqayaa laakiin George hooyadiis ayaa jikada ku soo laabanaysa markiiba way arkaysaa Start inuu aad u rafaadsan yahay. Markiiba qasaalada ayay furaysaa Startan dhulka ayuu ku soo dhacaya laakiin waa mid aad u suuxay dhulka ayuu ku dhacaya laakiin waxaa loo keenayaa dhakhtar waan la daaweynayaa. Markaas kadib George iyo qoyskiisa waxay wada imaanayaan suuqa ayagoo doonayaan meeshaas inay ka adeegtaan oo ay ka qaataan wax kasta oo ay doonayaan. George-na meeshaas ayuu wax ku arkayaa doon aad u qurux badan waana ka helayaa. Aabiis wuxuu sheegay inuu gadayo doontaasi. Startna meeshaas waxaa lagu gadayaa dhar asiga leeg oo la fac maadaama suuqyada kale ay aragtay in laga helo dhar aad u yar oo asiga la fac. Dharkan wuxuu ka helayaa meeshaas suud aad u qurux badan. Taas kadib Start waxaa loo qabanayaa xaflad oo iskugu wacay dhammaan familka qaybihiisa kala duwan laakiin markii arkaan in cunugani uu yahayba dooli aad ayay ula yaabayaan waxayna u sheegayaan inay ku xun yihiin inay u keeneen alaab asiga ka weyn balse asiga wuxuu u sheegayaa arrinkaas inaysan dhib lahayn oo aad ugu faraxsan yahay maadaama ay soo booqdeen. Intaas kadib cunugani George wuxuu sheegayaa inuusan ka walaalkiisa ahayn oo lagu qasbooyo oo kaliya uu yahay dooli. George hooyadiisa aabiisa ay ku furdan markiiba waxa uu imaanaya dooliga Start wuxuuna weydiinayaa halka ay ku sugan yihiin waalidiintiisa laakiin wuxuu sheegayaa inaysan ogeyn balse ay tagayaan meesha lagu xanaaneeyo carruurta agoonta oo ayna weydiinayaan balse waxaa loo sheegaa in laga helin wax macluumaad ah Start qoyskiisa. Intaas kadib Start asigoo meeshaas joogo wuxuu u sheegayaa in uu saaxiibo ay wada noqdaan asiga iyo bisadani laakiin asiga wuxuu u sheegayaa bisadani inuusan saaxiib la noqon karin. Markiiba waxaa imaanaya Nobel saaxiibkiisa wuxuuna u sheegay inuusan meeshaan ka dhunto laakiin Nobel wuxuu dareemayaa in ay meeshaan joogaan dooli wuuna u soo carfaa. Markiiba wuxuu ogaanayaa meeshaan inuu ku sugan dooliga laakiin markiiba wuxuu bilaabay inuu qoslo oo ku qoslo Nobel wuxuuna u sheegaa meeshaan sidoo uu cafiyo dooligan uu gurigiisa ugu sugan yahay. Markiiba arrinkaasi markuu maqlo bisada Nobel wuxuuna bilaabay inuu soo bursado dooligani laakiin dooligani waa uu ordaya waa ka fakanaya qolka wuxuu galayaa George markuu arko wuxuu weydiinayaa meeshaan wuxuu ka soo doonay wuxuu sheegay kaliya inuu doonayo inuu la baashaalo laakiin markiiba wuxuu arkayaa waxyaabo ku ciyaar lahay George markiiba aad ayuu u farxayaa. Markiiba meeshaas ayay ku wada ciyaarayaan George Start Joe ayay wada qaadanayaan waxaana meeshaas ka muuqato Start iyo George inay is wada fahmeen.
markiiba Stewart wuxuu arkayaa doon meeshaasi taale dhammaantii wuxuu weydiinayaa doontaasi waxa ay tahay wuxuu u sheegayaa doontani inuu beri ku kala rabo tartan sidaas awgeed inuu ka cabsanayo inuu ku guuldareysto balse Stewart wuxuu sheegay inuu asiga garabkiisa istaagi doono tartankan uu ku guuleysan doono intaas kadib Stewart George hooyadiisa aabbiis ayaa waxay arkayeen Stewart iyo George wada sheekeysanayaan dhammaantii arrinkaas waxay noqonaysaa arrin farxad leh maadaama George uu ogolaaday inuu Stewart la sheekaysto laakiin bisada Snoopy waa mid daawanaysa arrinkaas oo la socoto intaas kadib ayadii bisad kale ay soo raacayaan waxayna u imaanayaan bisad lagu magacaabo Snoopy waana mid lahadar ah waxayna go'aansanayaan habkii ay ugu takhalusi lahaayeen dooliga yariiska intaas kadib maalinka xiga ayaa la gaaray waxaana loo diyaar garoobayaa habka loo tartami lahaa ee doomankani George wuxuu ka codsanayaa Stewart inuu usoo qabto remote-ka meeshaas laakiin remote ayaa markiiba ka dhacayo dad meeshaasi joogeen ayaa remote-kana ku istaagay aad ayuu u xumaanaya laakiin Stewart wuxuu sheegay inuusan ka walwal ahaan sababtoo ah asigu uu saacidi doono tartankan uu ku guuleysan doono markiiba Stewart ayaa doontaasi koraya laakiin arrinkaas cajiib ayay la noqonaysaa laakiin ugu dambeyntii waxa suurtagelaysa Stewart inuu tartankan ku guuleysto dhabaantii arrinkan waxay noqonaysaa arrin aad u farxad badan maadaama arrinkan aan la filaynin qoyska George iyo Stewart markiiba waxay bilaabayaan inay dabaaldegaan oo ay meeshaas sawir iska wada qaadaan intaas kadib Stewart qoyskooda waxa uu imaanaya laba dooli aad u yaryar kuwaasoo sheeganayaan inay yihiin Stewart dooligani inay hooyadiisa aabiisa yihiin laakiin Stewart arrinkaasi waa uu la cajabiyaa sababtuna wuxuu weydiinayaa halkii halaas uusan ay ugu maqnaayeen laakiin ayagu waxay qancinayaan inay arrin saameysay sidaas awgeed ay ugu maqnaayeen arrinkaas awgeed ay doonayaan hadda cunugooda dooliga Stewart inay wataan arrinkaasna ugu dambeyntii waa uu suurtagalayaa laakiin George waa mid aad u murugaysan wuxuuna siinayaa gaariga aadka u yaraa ee uu haysan jiray oo Stewartna uu jeclaa laakiin guriga waxa uu imaanaya haweeneyda mas'uulka ee meesha lagu xanaanay carruurta agoonta waxayna u sheegaysaa inaysan jirin wax waalid uu leeyahay Stewart waalidkiisana hore u dhinteen arrinkaas oo ogaadeen qoys askarta ayaa imaanaysa waxaan loo sheegay Stewart inuu lumay inay raadiyaan maadaama labadaas aysan ahayn waalidkiisa askartu waxay u sheegayaan inay raadinayaan sida ugu dhaqsiyaha badan oo lagu soo dhigay gacanta bisadii Nobel waxay soo baxaysaa waxayna u imaadaysaa laadarinta kale mukulaala waxaan u sheegaysaa arrinkiina la socday askarta oo askartii ogaatay arrimaha in dooligaasi aysan lahayn qoys laakiin mid kamid ah dooliyada ayaa waxay go'aansanaysaa in arrinkaasi ka soo horjeesato oo ay runta u sheegto maadaama aysan ahayn qoyskooda saxda muhiimadoodana ay ahayd Stewart inay ku wareejiyaan bisadaha arrinkaas ay ugu dambeyntii u sheegayaan Stewart arrinkaas waa uu la cajabiyaa meeshan waa uu ka soo tagay markiiba si uu ordayo si uu wuxuu si toos u soo aadaya guriga George iyo qoyskiisa laakiin George iyo qoyskiisa waa mid aad u warwarsan maadaama aysan waayeen dooligani waxaan go'aansanaa warqado magaciisa iyo tilmaamihiisa ku dhigin inay meelaha ku dhajiyaan si loo helo qofkii helana waxay siinayaan hadiyad kadib Stewart waa uu soo baxaya wuxuu imaanaya gurigaasi balse basida ayaa soo borsanaya asagoo soo socdo gurigaasi laakiin ugu dambeyntii waxay moodayaan inuu ku dhacbada laakiin ninkan waa uu soo badbaaday oo wuxuu si toos u soo aaday guriga markuu imaado guriga kadib wuxuu meeshaasi ku arkayaa bisada Nobel ayaa markii la hadlay waxaan u sheegaysaa qoyskani inay iska hilmaameen oo asiga meeshan iskaga tago wuxuuna bilaabaya inuu niyad jabiyo oo u sheego sawirkiisa xataa in laga jaray sawirka qoyskani maadaama asiga la iska hilmaamay dhamaantii Stewart meeshaas waa uu ku niyad jabaya laakiin muhiimada ugu weyn ee Nobel ayaa ah inuu guriga iskaga tago intaas kadib bisadaan waxay go'aansanayaan inay raadiyaan dooliga yaraa ee Stewart markiiba ay soo baxayaan waxayna soo aadayaan dhanka oo asiga ka baxay laakiin Nobel wuxuu sheegay inuu meeshan ka carar maadaama asiga ay raadinayaan mukulaale aad u fara badan markii uu mukulaalaan waxay isku arkayaan Stewart iyo Nobel meel sala taagan waxaana u sheegayaan Nobel in mukulaashani in dooligan ay ku soo wareejiso maadaama ay doonayaan inay cunaan laakiin Nobel arrinkaas waa uu diidayaa wuxuuna u sheegayaa in soo dooligani uusan dhiibayn Stewart arrinkaas aad ayuu ugu farxayaa hab ayuu siinayaa Nobel bisadaan waxay taagan yihiin iska soo dhiib dooligani maadaama uusan kula mid ahaynin qoyskaas inuu ku laabtana wax aysan soo kordhiyeen saas awgeed iska soo dhiibo laakiin asiga Nobel waa uu ku adkaysanaya arrinkaas wuxuuna u sheegayaa in qoyskaas ay jeclaadeen dooligani saas awgeedna uu dib ugu celinaya dooligana markiiba uu soo boday wuxuuna sheegayaa in ay ka leexdaan asiga laakiin bisadaan way soo ordaan waxayna bursanayaan Stewart waxayna moodayaan inuu ku dhacay meesha hoose ee badda laakiin geed ayuu ku dhagayaa waa uu badbaadaya ugu dambeyntii waxaa badbaadinaya Nobel oo bisadaan wuxuu ku ridayaa meesha badda ah intaas kadibna waxa u suurtagelaysa Nobel inuu badbaadiyo Stewart sidaasna ay nabad meeshaasi ugu badbaadaan bisadahan kalena ay cararaan Nobel iyo Stewart waxay imaanayaan guriga Nobel wuxuu iska dhigayaa ninkani inuu soo badbaadiyay dooligani aad ku yar qoyskan aad ay ugu farxayeen arrinkaasi maadaama dooligani ay u xiiseen oo haddana uu soo laabtay dooligan wuxuu u sheegayaa inuu soo badbaadiyay Nobel midaasna uu ku faraxsan yahay filimkan halkaas ayuu ku dhamaanayaa qoyskan jawigooda caadiga ay ku soo laabaneen waxaan rajeynayaa inaad filimkan ka hesheen haddii aad ka heshay muuqaalkan like dheh channelka kalsooniya media subscribe dheh inta muuqaalada lamid camal aan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo